السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسودو كورساقون channel iyo كورساقون.com labadaba muuqaalkan maanta waxaan uga hadli doonaa qaabka aad isku diiwaan gelin lahayd website-ka Coursaaqon adigoo isticmaalaya mobile-kaaga qaabka aad casharada ku heli lahayd haddii aad arday hore ahayd qaabka aad la jaan qaadi lahayd update-ka cusub ee hadda aan website-ka ku soo kordhinay okay talaabada koowaad waxa weeyaan waxaad soo furtaa browser-ka aad isticmaalayso mobile-ka tusaale ahaan Google Chrome oo kale and then waxaad baadhaa markaa Coursaaqon search garee go ku dhufo okay Coursaaqon.com markaad soo gasho website-ku qaabkan ayaaba uu kuugu soo baxaya markuu qaabkan kuugu soo baxo talaabada koowaad waa in aad markaa haddii aad tahay arday hore waa inaad login samayso si aad casharadaadii aad ka diiwaan gashanayd aad u hesho haddii aad tahay arday cusubna waa in aad isdiiwaan geliso marka si aad isku diiwaan geliso waxaad timaadaa menu-gan yar ee dhinaca midigta waxaad ku dhufataa markaa button-kan sign in or sign up button-kan ku dhufo waxa ku soo baxaya markaa form-kan yar oo ah login form-kii wax badan kaga duwana markii lagu isticmaalay computer-ka marka haddii aad account hore lahayd ama arday hore u diiwaan gashanayd waxaad gelinaysaa username-kaaga iyo email-kaaga ama email-kaaga iyo password-kaaga ama password-ka ka bacdina waxaad ku dhufanaysaa markaa sign in haddii aad tahay arday cusub waxaad iyada ku dhufanaysaa markaa register now oo hadda aan ku dhufan doono register now markaad ku dhufato waxa ku soo baxaya form-kii isdiiwaan gelinta and then waad isdiiwaan gelinaysaa markaa magacaaga waxaad gelinaysaa tusaale Cabdillaahi waxaan gelin last name-kana Ismaan ama Xaaji okay username waynaad gashata markaa username-ka waxaan ka dhiganayaa maybe Cabdillaahi Xaaji waxay noogu xigay inaad geliso email-kaas oo noqon mid shaqeynaya si haddii aad u ilowdo password-ka lagugu soo diri karo password reset email-ka ama fariintaad password-ka ku soo ceshan karto ama hadba wixii fariin ah ee khuseeya course-ka aad iska diiwaan geliso si lagugu soo diro inaad geliso email sax ah sidoo kale inaad frustrate gashato ama password-kaas oo ah mid adag waxaan gelinaa tusaale ahaan hadda tijaabo 1 2 3 ayaan geliyay wuxuu leeyahay password-kani waa medium waxaan raacinanaa special character at oo kale wuxuu leeyahay waa strong okay mar labaad baan ku celinanaa tijaabo 1 2 3 and then waxaan raacinanaa at wuxuu inoo soo saaraya markaa tick tag green-ka micnaheedu wax weeyaan password-ka laba jeer markaad gelisay labadii jeerba way ismatch kareen waxaad ku dhufanaysaa markaa button-ka register markaad ku dhufato wuxuuna leeyahay password-ka ma ku save garayaa password manager-ku save baan isaga dhufanayaa ama waad ka dayn kartaa no problem waxaanu ku geynayaa marka automatically dashboard-kaagi ayaaba uu ku geynayaa okay marka hadda waxaad arkaysaa dashboard-kii inay wax courses oo enrollment ku samaysayna jirin wax course oo active ayna jirin wax course oo aad completed ardaygan uu yidhi aanay ugu jirin maadaama hadda isdiiwaan geliyay si uu markaa u helo casharadii ama courseski wuxuu samayn karaa maxay wuxuu soo furi karaa menu-gan yar ee koornaha wuxuu ku dhufan karaa markaa courses si uu course u dalbado ama course order u sameeyo and then course-ka uu rabo inuu dalbado ayuu halkan ka dalbanaya tusaale ahaan course-kan C# oo kale wuxuu ku dhufanaya markaa add to cart markuu ku dhufto waxaa halkan kuu soo geli doona markaa cart-ka course-kii haddii aad course labaad inaad ku darsato rabto waxaad soo furaysaa menu-gii mar labaad waxaad gelaysaa page-kii courseska markaad gasho halkan waxaa kuu soo baxay koorsooyinkii kala duwanaa waxaad dooranaysaa course-ka aad rabto tusaale ahaan HTML iyo CSS oo kale ama WordPress oo kale course-kii aad rabtay markaa aad ku darsanaysaa WordPress oo kale ayaan klik siinayaa and then isagana wuxuu igu daraya markaa card-kaygii oo ah daaqadii ama page-kii courseska aan dalbanayay laysoo gelinaya waxaad arkaysaa markaa laba course laysoo geliyay waxaad arkaysaa markaa course walba iyo detailskiisa sidoo kale waxaad samayn kartaa inaad gasho courseska oo course-ka intaanad soo dalban ama aanad course order samayn aad course-ka sii gasho aad eegto markaa casharka preview-ga ah detailska curriculum-ka iyo waxyaabaha lagu baranayo iyo topics-ka aad qaadan doonto and then markaad ku qanacdo ayaad ku darsanaysaa maxay add to cart ayaad odhanaysaa qaabkana waad samayn kartaa okay course-kana tusaale ahaan waan eegnay videoskii nagu jiray macluumaadkii isagana waxaan odhanaa markaa maybe add to cart ayaan odhanaya
marka hadda waxa say noogu jira maxay 3 course baan sidan ku soo gelinay course kana rabin baad markaas yar fudud aad iska saari kartaa adigoo ku dhufanay button remove and then hadda waxa noogu jira 2 course ba sida inoogu jira haddii aad course kala rabin waad iska saari kartaa marka remove baad ku dhufan kartaa haddii uu discount jiro waxaad soo gelinaysaa code-ka discount-ka halkan soo gelinaysaa haddii already discount lagu soo raaciyna waxaad arkaysaa inay kugu qoran tahay course walba save and then number-ka aad save gareynaysaa ama yani inta discount ku ahaa ayaad arkaysaa okay waxaan ku dhufanaa marka proceed to check out markaad ku dhufato wuxuu ku keenayaa daaqadan waxaad gelinaysaa marka magacaaga saddexan waxaan gelinayaa maybe Cabdullaahi Ismaan Xaaji Cabdi telephone number sax ayaad gelinaysaa iyo emailka aad isku diiwaan gelisay okay haddii aad rabto wax fariin inaad noo soo qorto iyadana halkan aad ku soo qoraysaa laakiin waa optional iyadoo waad ka gudbi kartaa inta markaad samayso halkan waxa kugu jira maxay detailskii macluumaadkii courseska aad dalbanayso qaabka aad course fee ku bixinayso talaabooyinka aad raacayso and then waxaad samaynaysaa marka I have read and agree the terms of the website tigsaynaysaa ama button-kana tigsaynaysaa oo aad check gareynaysaa saxda yar kabacdina aad ku dhufanaysaa marka complete payment markaad tidhaahdo wuxuu kuu soo saarayaa daaqadan oo micnaheedu tahay dalabkaaga waan helnay ama dalabkaaguna soo gaadhay markaas ayaa course-kii lagu soo fasaxaya markaad soo bixiso maxay course fee-ga waad nala soo xiriiraysaa ama annaga ay kula soo xiriirno haddii aad u baahan tahay inaad nala soo xiriirdo waxaad imanaysaa maxay menu-gan waxaad ku dhufanaysaa contact page-ka waxaad nagala soo xiriiri kartaa email waadna soo call garayn kartaa ama WhatsApp-ka ayaad klik siin kartaa ayo waxa kuu soo baxay WhatsApp-kii waadna nala soo xiriiri kartaa sidoo kale waxaad nagala soo xiriiri kartaa ciwaanadan xagga hoose ku qoran anyway haddii aan galnay marka qofkan dashboard-kiisii markaan dashboard-kiisii galno wax course still enrollment ku sameeyay ma jiraan menu-ga yar xagga hoose ee midigta ayaad klik siinaysaa waxaadna markaa ku dhufanaysaa halkan enrolled courseska uguma jiraan wax course oo enrollment ku sameeyay haddaad ku dhufato halkan mar labaad oon galno order history-ga waxa uu soo geliyay dalabkii hadda uu sameeyay oo still ah processing status-kiisu way ka dhigan tahay course-ka weli looma soo fasixin marka course-ka haddaan imika usoo fasaxo ardaygan oo aan page-kana markaa ku dhufto refresh halka processing-kii waxay isku bedeli doontaa maxay completed way ka dhigan tahay course-kan ardaygan waa loo fasaxay ama labadan course uu ardaygan soo dalbaday waa loo fasaxay haddaan ku dhufto menu-ga mar labaad oo aan galo markaa maxay enrolled courseska qofkan iska diiwaan geliyay waxaad arki kartaa markaa koorsooyinka kuugu jira ama koorsooyinka ardaygan ku jira course-ka uu rabo ayuu markaa ku dhufan karaa marka course-ka ku dhufto waxa uu bilaabmay casharkii horreeyay automatic u bilaabmaya wuxuu samayn karaa inuu soo furo grade-kan yar halkan ay uga soo baxaan markaa chapters kala duwanaa ee uu ka koobnaa course-kani casharka uu rabo ayuu markaa klik siin karaa and then waxa hore uga bilaabmaya markaa maxay casharkii ayaa hore uga bilaabmaya waxaad samayn kartaa inaad weynaysato oo ardaygu weynaysto casharkii okay quality-ga aad kordhisan kartaa haddii aad haysato internet macquula qaabkii YouTube-ka baad kordhisanaysa quality-ga oo kale intaa markaad samayso casharka dhamaysto ama casharka qofku dhamaysto wuxuu ku dhufanayaa mark as complete sidoo kale waxaad u gudbi kartaa casharka wixii waa next aad klik siin kartaa markastoo aad cashar dhamaysana waa inaad ku dhufato button-ka mark as complete markaad ka dhamaysato waxaad tegaysaa menu-gan sare waxaad ku noqonaysaa dashboard-ka markaad ku noqoto si fudud baad odhanaysaa markaa maxay again menu-ga ku noqonaysaa waxaad ku dhufanaysaa markaa maxay log out si aad uga baxdo and then qaabkaas ayaad uga baxday mar labaad baad soo geli kartaa adigoo gelinaya halkan email-kaaga iyo password-kaaga already waxaan ku save garaysanay anigu browser-ka sidaa darteed haddaan klik siino kan oo aan idhaahno markaa email-kii password-kiiba uu inoo geliya ama username-kii password-kii aan ku dhufto sign in wuxuu hore iga geynaya marka dashboard-kaygii iyo courses-kii aan dhiganayay iyo halkii aan marayay marka qaabkaasi waa qaabka la isku diiwaan geliyo qaabka course order loo sameeyo qaabka casharada looga helo ama casharada aad ku baran karto adiga oo isticmaalaya mobile-kaaga